Tuxfadii saddexaad oo arday ayaa waxay ka qalin jabisay dugsiga boodhanka ah ee Buuhoodle ku yaala waxaana dugsigan uu bixiyaa diini iyo maadi munaasabad si weyn loo soo agaasimay lagu qabtay howlka shirarka iyo xafladaha ee hotelka Cabdiguri Balance Buuhoodle waxaa ka soo qayb galay waalidiin cuqaal waxgarad gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika xarunteeda Buuhoodle ugu horreyn halkan waxaa ka hadlay maamulka guud ee dugsiga boodhanka ee Buuhoodle Cabdirasaaq Maxamed Ismaaciil waxaana uu faahfaahin ka bixiyay ardaydan ka qalin jabisay macadka boodhanka Buuhoodle waxaa la furay 2016 bishii koobaad ilaa iyo maanta iyo maalinkaana si habsami leh u socdaa arday badan baa quraanka ka dhamaysay oo ka qalin jabisay إن شاء الله هذا حرجينا نادوان إنك خرجنا من دون دفعتي هذه أدق مهد علينا معلمينتا Buuhoodle boarding school ورناهانتي دجال ليراد موتشي هبين يا معلم بوتاجن إلا يا روتي مركل ساقعه صلاة الصبح مركي تكدان وحيكوا بريستان إن أرض كلجستان 10 إن برقدي الصبح سكالجلان صلاة الظهر مركي تكدان قضية كدبنا مركي سيحيان إن لبعض الظهر ما هدنا دبلو توسيو سي دجالكي يا ماركتي وحبرشة دي هالكي لوجسي وضو إلا يو لقى قاعد صلاة المغرب بالله وضيا إلا لبعض الظهر نمو إن شاء الله صلاة المغرب كلا قاعدنا هريبة ينا لوسي وضع ومعلمين كلا لوريجة إلا يهبين كي لقى قاعد يهردده مركا إن شاء الله آديات بيقوم هالسنين رونهانتي دلال ليراد ويموتشين وحان كلهم مهد علينا يا واردين تو ينا نلقرب تاجن مرغلبة دلالك ما دامو اسكولكو بوردين هاي وحريسي هاي وأردنا الله فسيحنا لبيه طبعا بلود بالكاملة وحان وطلق الله إن وحبرشت هيسان ووقت جيدنا كوبين يهي إن أنا أردنا الصينو ما دام يسنة دن حريسيهين ويجا ياردنا سنة سجالك بلود حديقنا يا وكل الدونان وحان صبينا مركز سنة دوسية في سجالك بلودها وحان قصورورني لح بلود وأردنا مركز لح بلود دكتور بوردينكا بوحو دميستا سنة دوسية سنة درادير سنة كي وحا كجرا لبا سنة دوسية وأردنا ساكا halkan fadhiya afraad sanad 6 bilood hore ahaa 6 bilood ee ka bilaabmi doona insha Allah subaxa berita wuxuu gudbayaa shanaad kii labaad ahaa wuxuu gudbayaa saddexaad kii saddexaad ahaana afraad kii koowaad ahaana labaad buu gudbayaa hadii la haydmo boardingka inay aad iyo aad xoog u saaraan inta aysan quraanka bilaabin inay higaada ardada si fiican wax way uga dhisaan runtii waxa weeyaan boardingkan waxaa haysta oo waxa weeyaan gacanta ku haya maamulada runtii dhul badan soo maray oo meelaha horumarsan waxa weeyaan ay kamid yihiin caasimadaha waaweyn ee Soomaaliya soo arkay goobaheeda kala duwan qayb kamidana wax ku soo bartay ayaa gacanta ku haya mahad celintu waa waalidka gartay inuu ilmihiisii uu xareeyo siduu aqoontii cilmiyeed ee maadi iyo diiniba wajiba keeno bay'adii iyo suuqii ka gartay ee isri ilmahaagan ha u tafaruqo waxbarashada oo waqtigiisa badidiisa ha siiyo ugu horeysay ardaygeygii uu fasax maalintii jimcaha yimaadaba waxaan ku arkay sukuun iyo deganaan iyo isagoo kala duwanba sidii maalintii hore uu iga tagay muddo kooban waliba waxaan qiyaasayaa ilaa iyo 20 casho inaan waliba anigu aan codsaday inaan marnaba la soo daynin balse isagoo cagihiisa ku socda uu yimid oo ka duwan xaaladii aan ku aqaanay arintaasi way iga fajacisay haddana waxaan arkay arin cajiiba markiiba wuxuu bilaabay walaaladiisii ka yaryaraa inuu yidhaahdo maxay dhigtaan maxay qabteen ila subciya kaalaya war arrintii waaba ka bedelan tahay say waxu jiraan farxadee noqday macadkaan booqday waa is aragnay macallimiintii waxay ii sheegeen inay arrintu weli bilow tahay runtii aad baan ugu faraxsanahay macallimiinta iyo maamulada macadka Buuhoodle boarding school barashada lagu dadaalo maanta hoos loo go'ay gabdhaha hadaan u sameeyo xagooda waxa weeye gabdhaha tardiinta leh hadday jaamacad ka soo baxday University America hadday ka soo baxday iyo hadday quraanka taqaano ta quraanka taqaana ayaa waajiba in la guursado oo la sharfo oo la karaameeyo laakiin maxaa marka hal iska shiro
lagu dabal arrintaa shacab wanaagsan baatiin oo sharaf leh oo karaamo leh oo adduunka daafiisa qiimo ku leh laakiin idinku ma ognin sharafka ay leedihiin meesha adduunka kaga jirta goobo وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعظم منهل أنعم به من مورد لمن استقى. والدكينا waxaa loo baahan yahay sida uu aadan sheegay inaynan mas'uuliyadda ku sii deyn madrasada iyo macallimiinta ee aynu kala qayb qaadano oo waxa weeye la garab istaago oo tale iyo tusaaleyn iyo dhaqaale iyo waxtarba lagu dhex istaago. waxaan dareensanahay madrasadu waa boodhan oo ardada waana la jiifiyaa cunadana waa la siiyaa. waalidku waa inaysan ku gaabsan fiiga uun ardayga ka bixinayaane maalin alabariya oo intaad soo iibsaan dhowr neef iyo maxay tahay xoogay raashina iyo ardada u geey ka ducaysta runtii aniga in badan baa niyadeeda ku soo dhaca gaar ahaan ku agoonta. ugu dambeyntiina waxaa halkaa ardayda lagu guddoonsiiyey abaalmarino uu dugsigan ugu talagalay waana ducfadii saddexaad ee ka qalan jabisay dugsigan boodhanka ee ku yaala Buuhoodle waxaana tan iyo intii dugsigan laga aasaasay Buuhoodle uu soo saaray arday badan oo aqoontooda waxbarasho laga dareemayo deegaanka Buuhoodle waxaana uu dugsigan uu kaalmaha hore ka galaa tartamada quraanka kariimka ee lagu qabto deegaanka Buuhoodle وعلى عصمة تعالى وقت الفيش كعربي اسماعيل